بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الشكر لله، الملك لله يا رب العالمين. ما أنت ويوم الجمعة وحان بولجسك بحناية جمعة مبارك مدهن بسن كنا مكبلابن لإيش sababta oo ah xanuun ihaayo igana haayo walaashayda muslimadda ah ilhaan cumar dhibaatada iyo culayska hayd sida afarta gees looga dhigan yahay murugta aan ka qaaday ayaa ihilmaan siisay. bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdu lilah, alshukru lilah, almulku lilah yaa rabbi alcaalamiin iyo jimca mubaaragti. hadda waxaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto inta dhiigooda dhiig islaamnimo oo yahay oosan dhiigooda qabiil ahayn, waxaa waaye qabiilkii islaamnimada wax ma wadaagi karaan, ma garat? waxaa waaye qabiilku wuxuu kuu diidaa islaamnimadu kaa fogeynaa, ma fahanta? markii intii dhiigooda iyo damiirkooda islaamnimo ku samaysan yahay ummadda ilaahayna ka mid ah, waxaan weydiisanayaa gabadhaas walaasheen ah oo afarta gees ay ka haystaan reer galbeedka inay duca niye ah usoo diraan inuu ilaahay ka qabto oo guusheedii rabbi u caddeeyo, ma garat? muslinkay il nooga tahay, muslimka magaciisa muuq nooga tahay. borogareysaha ay gaartay waa mid Soomaaliya oo dhan ay gaartay, magaca Soomaaliyeed ay muujisay. marka way naga mudan tahay in aan u duceyno nicmada ilaahay siiyane ilaahay uu u adkeeyo uuna soo celiyo magaceeda iyo guusheeda oo afarta gees laga haysto. marna la leeyahay iscazil, marna la leeyahay Mareykanka iyo Yahuudda ka dhex hadashay inay iska horkeenta rabtay, ayna ka hadasho wax xaq oo run ah oo cad oo qof sheegi karto maanta Mareykan joogo aysan jirin, taa qof geesiyad oo geesinimadeeda maasha Allah oo ilaahay ku tiirsan, ilaahayna aaminsan. nicmadan iyo khayrkan ilaahay awoodiis ku siiyay, aqoonteeda ku heshay. maantana ilaahay inuu ka qabto aan u bariyay afarta gees ku haysto reer galbeedka. ilaahay waxaan u weydiiyay inuu ilaahay ka qabto. masjid abuubakarna way u duceeyeen. imaam axmed nuur xalay shalay galabtiya masjid u qore, xalay astaghfirullah, xalay 5 saac masjid u qore wuu iga soo jawaabo uga mahad celinaya, ilaahay ka ajir siiyo. imaamkeena masjid abuubakar, culimada masjid abuubakar waxaan ku salaamaa salaan qaali ah. culimada ilaahay noo barakeeyo, cilmigooda waa kan aan ku noolnahay, faafinta khayrka diintooda waa kan aan shansano. ilaahay culimada islaamka meel kasta adduunka joogaan waxaan u weydiiyay inuu ilaahay cimriga u barakeeyo, caafimaadna siiyo. ilaahay imkuu samadiiday mar kale oo labaad ilaa gabadhaas guush ay ka hesho masjida ku yaalo magaalada Seattle. aniga ma wada garanayay masjid nuur oo xaajar Rainier inuu ku yaala umalaynayo, iyo abuubakar iyo maxaan ku dhahaa masjidka oromada oo dariskeena Siitaag, iyo maxaan ku dhahaa mid kaloo Siitaag ku yaalo asagana magaciisa ma garanayay. waxaan ka codsanayaa muslimiinta ku dukato dhan inay ilaahay u baryaan ilhaan cumar inuu ilaahay ka qabto reer galbeed, inuu ilaahay ilhaan cumar reer galbeed ka qabto. aamiin yaa rabbi alcaalamiin. intaas kadib anigu waxaan ugu talagal oo u diyaariyay walaashay baraamburo duco ah ilinta anigoo iga da'aysaan qore oo ilaahay marqaati iga yahay. ilintoo ida'aysa maxay ilinta ii da'ayaa isweydiiyey. ilhaan cumar aniga isma naqaano, aqoon nagama dhexayso, meediyaas baan ka arkay. ilinta laakiin wixii iga keenay ii sheegi kara. ilinta waxaa iga keenay inaan ahay qof diinteeda islaamka jecel, jaceylka islaamnimada aan u qabo
gabadhaas aanu aqoon u lahayn qof islaana markuu xanuun ama wax ka culus ay u yimaadeen anigana waxaan dareemaa xanuun ilaahay uga shukriyo inta islaan ilaahay sa ka dhigo inta islaan ilaahay uga bari inta islaan ilaahay sa ka dhigo xumaan wax uma qabato wanaaga guul lagu gaaraa u dhawaashaha ilaahay guul lagu gaaraa maanta markaa xumaan diro xumaantaas wax qeyr iyo ma dhaweynayso wanaag ilaahay dirsa markaan dir laakiin ilaahay ii dhaweynaya iimaankiigu ilaahay igu ziyaadinaya qof kastoo islaana taasaan u sheegaya in iimaanka ay ku ziyaado wanaaga la samaysto nooc doona ha ahaado ma garat gaalada soo gaalamahan kaafirin maana haddii aad xiriiriso oo qalbi nadiif ku xiriiriso ilaahay dirtis oo sunnada nabiga raacda sallallahu alayhi wasallam nabiga gaalada wuu xiriirin jiray wanaaga diinta islaamka uu sii jiray adigana haddaad sunnada nabiga raacdo oo aad xiriiriso ilaahay waa ka ajir siinaya adduunyo iyo aakhiro wanaagaas aad ka raacday nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ilaahay iimaankaadu ilaahay ku ziyaadinaya iimaankaada ku ziyaadaya marka dadka iimaanka ziyaadsadaano waqtigan adduunyada oo nicmada ilaahayna siiya caafimaadka ka faa'iideystaan gabadha walaashoodna qalbi nadiif ducaha u diraano inuu ilaahay gaalada ka qabto jazakallahu khayr waxaan sugaay oo aan gaaday halkii saac oo nabiga sallallahu alayhi wasallam uu tilmaamay yawmal jimca ku jirtay hal laga raadiyo casarka iyo maqribka dhexdooda casarka hadda dukan ilaahay naga aqbalo anaga inta islaamada nabi maxamed maqribkii aan sugaynaa marka ducada oo aan ugu talagal walaashay halkaas saac inuu rabbi waafajiyo xalay dhan weydiisanay aan ilaahay ka baryay haddana saacada waa lagu jiraa casar iyo maqrib dhexdooda haddaan u soo gelinaa baraanburka haddii rabbi ka raali noqdo soomaaliya qalbiga isku fur xumaha qashinka isaga dar wanaaga qaado waqooyi iyo koonfure ismaqla alla dartiis kuushiye xumaha iyo dhibka iyo xasadka shaydaanka leeyahay iska daaya dad walaalaha tihiin diinta meel uga soo wada jeesta islaamka magaciisa ha jebinina ha naqanina wax kala tafaraaruqo kala taga raaca aayadda ilaahay ka soo aroortay واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا جزاك الله خير كل جين حائدين سلام على درتيس كل جين وحائدين كوجو دعي على درتيس انت بإسلام مجلس شيغتو إلهي الدنب وذا عفيو أنا قال الدنب إلهي عفيو والدينت إله ونحرست حق الله نوافجي دينت الله نو عافي علماء إله نو بركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو اسكجر أدونك انت نوشهي كفائديس وقتك وغنا فائديس وناك نو قبيل نو حمان نو حاسد يو اسكجر أدونك باي